odaygan idin muuqda ayaa ka sheekeynaya qisada filimka. waa sanadkii 1800kii magaaladuna waa Nantucket Island oo Maraykan ka tirsan. waa waqtigii saliidda maanta dhulka hoostiisa laga qodo laga soo saari jiray caloosha nibiriga. ninkan idin muuqda waa Owen Chase. muddo dheer ayuu ahaa badmaax. waxaan u shaqayn jiray Mr. Mason oo ah mulkiilayaasha maraakiibta. sababta u socdaana waa in kabtanimadii loogu ballan qaaday uga noqdo doonta baxaysa ee Essex. laakiin mulkiilayaasha iyo maalgeliyaasha doonta waxay u sheegeen in doontan bixi doonta uu kabtan ka noqon doono George Bullard, iyagoo ballankii ugaga baxay. George Bullard oo ka soo jeeda qoys caan ku ah kalluumaysiga nibiriga, sidoo kalena ah qoys qani ah. Owen Chase-na sidaas ayuu ku aqbalay heshiiska kadib lacago badan oo la siiyey iyo heshiis qoraaleed ah in doonta dambe ee bixi doonta uu kabtan ka noqdo. haddaba sheekada doontii Essex waa qiso u dhaxaysa laba nin, kabtan George Bullard iyo ku-xigeenkiisii Owen Chase. kani waa kabtan George Bullard. si yasmo leh ayuu ugu yidhi, waxaad ka soo jeedaa family beeraley ah soo maaha? Owen oo kalsooni ka muuqato ayaa ugu jawaabay, haa, waxay gaadhay wakhtigii ay doontu ka bixi lahayd jasiiradda Nantucket. shaqaalaha waxaa lagu amray inay safarkooda bilaabaan. farxad iyo raynrayn ayay ku bilaabeen safarka. habeen iyo maalin ay socdeen. waxa ay meel fog ka arkeen daruur da'aysa. kabtan George wuxuu amar ku siiyey in doonta dib loo celiyo, halka Owen oo ku-xigeenkiisa ahaa uu soo istaagay. hore ayaa loo soconaya. shaqaaluhuna maadaama uu Owen ahaa nin khibrad badan leh, Owen ayay ku raaceen. waxay galeen jawi cabsi ah. nin kasta oo ka mid ah wadnuhu waxa uu ka garaacmay dhuunta. doontu waxay la gashay mawjado waaweyn, roobab iyo dabaylo wata. ilayskii qoraxda ayay mar keli ah waayeen, laakiin xirfad iyo calool adeeg uu sameeyey Owen Chase way ka gudbeen waana ka badbaadeen iyagoo nabad qaba. laakiin arrinkaa waxaa dhaleeceeyey kabtan George Bullard, una digay inuu mar dambe amar la'aantiisa ficil noocan ah sameeyo. socod dheer oo qaatay 3 bilood waxay soo gaadheen halkay ka kalluumaysan lahaayeen nibiriga. farxad ayay ahayd. rag ay ahayd markii ugu horraysay ee ay soo safraan. isdhiirigelin iyo dadaal waxay dhexda u galeen nibirigii, wayna ugaadhsadeen. habeennimadiina waxay noqdeen kuwo casho wanaagsan ka cuna, halka carruurtii ugu miisaanka yareed loo diray gudaha nibiriga si ay saliidda gudaha ku jirta u soo saaraan. safarkoodii way sii wateen. waxay tegeen jasiirad ku taalla Caribbean-ka, halkaasoo xog waraysi ay u tegeen. socodkoodii ayayna halkii ka sii wateen. waxay soo gaadheen jasiirad ku taalla Caribbean-ka, waxaana u qaadatay muddo 3 bilood oo kale ah inay soo socdaan. haddaba iswaraysi iyo sharaab cabis kadib waxa uga sheekeeyey ninka kale badmaaxa ee ku nool jasiiraddani sheeko layaab ku noqotay, balse ay iyagu u qaateen mala awaal. waxa uga sheekeeyey inuu indhihiisa ku soo arkay doontuu saarnaa oo uu burburiyey nibiri. waxay ku noqotay waxay la yaabaan, sababtoo ah nibirigu waa xayawaanaadka badda ku nool ee aan ficil geysan ama aan dadka soo weerarin. way la yaabeen ninka sheekada ka sheekaynayo, waxaana u qaateen nin cabsan oo iska hadlaya. safarkoodii badda ayay dib u galeen. iminkana waxaa laga joogaa 14 bilood ayay badda ku jiraan, waxayna raadinayaan meel ay ishu ka qabato nibiri. way arkeen, waxayna seefaysteen warmahooda. waxa ay shiishyahanadu u soo dhaadhaceen doontii yareed, iyagoo u soo kaxaystay halkii bartanka ay taagnaayeen nibiriyaashu. nibiriyaashii mid ka mid ah ayaa bilaabay iska caabin, waxaanuu ku tuuray baalkiisa dambe mid ka mid ah doonyihii yaryaraa, kuwaasoy ka dilaacday oo dib ugu soo noqdeen doontii weyneed. halka kabtan George doontooda watay uu ku ugaadhsanayey isagu, laakiin waran uu gamay waxuu ku dhuftay
nibirigii caddaa ee looga digi. nibirigii waxuu noqday mid weerar ku soo qaada doontii Asagas, jugo badan oo u gaadhsiiyana doontii waxay noqotay mid si fudud biyaha u kala raacda. kabtankuna indhihiisa ayaa uu ku arkayay. shaqaalihii doonta intii badbaaday waxay iskugu yimaadeen doonyihii yaryaraa ee kalluumaysiga. doonyahan yaryarna waa kuwo ay ku qaadanayso safar sannada ah haddii ay ka badbaadaan hirarka iyo mawjadaha badweynta. laakiin safarkooda hore ayay ka sii wateen iyagoo bilaasahay ah amba bilaa cunto ah. mawjado iyo roobab waaweyn ayay dhexda u galeen. ragga qaar ayaana ka daatay doonyaha oo mawjaduhu sidaa ku qaateen. dhaawac ayaa soo gaadhay mid ka mid ah ragga. sahayda ay wateen oo ku yar awgeed waxay noqdeen kuwo kala qaybsada. qayb yar oo jabaati ah. maalinka oo dhan waxay cunayaan qaybtaa yar oo ay cunaha ku qoynayaan. nin tahriibay uunbaa malaha dhibtan dareemi karaya. waa siday la tahay. yaan ilaabin weli oo soo noqday waa nibirigii oo weerar ah haddana. waxau si fudud biyaha ugu daray doonyihii yaryaraa. intii dhimatay maahee kuwii kale waxay noqdeen kuwo mawjaduhu ay ku soo tuureen jasiirad yar oo lama degaana. sida idiin muuqata dad hore ayaa halkan ku soo godoosumay, cidlana ku dhintay. taasina waxay hoos u dhigtay rajadii ay ka qabeen nolosha. waxay hadda xaqiiqsadeen haddii ay sii joogaan inay cidlo ku dhimanayaan, haddii kalena ay safarkooda dheer ee badda ah sii galaan. ragga qaar ayaa go'aansaday intii ay badda ku dhiman lahaayeen in ay halkan ku dhintaan. kabtan george iyo owen safarkoodii ayaa halka ka sii wateen. laakiin nasiib xumo haddana yaa dhintay. waxaa dhintay mid ka mid ah ragga ay asxaabta ahaayeen owen, oo isaguna runtii muddo dheer ay wada ahaayeen badmaax. ilinta indhahooda ka muuqataa waxay ahayd mid kasta wejigiisa laga arkayo, waayo waxay ogaayeen inay gaajadu iyo baahidu ay u geysay meydkii saaxiibkood inay cunaan. odayga filimka ka sheekeynaya ayaa yidhi, qisadan waan ka qariyay xaaskayga sababtoo ah inay iga tagtaan ka boqay. xaaskiisa oo meel dambe ka soo dhegaysanaysay ayaa ku tidhi, marnaba kaamaan tageen. waxaan kuu arkaa geesi, markaa yareedna waxaad ahayd geesi. waanaan kugu jeclahay wax kasta oo aad tahay, ayay ku tidhi. waxaa laga joogaa 71 maalmood dhacistii doontii Asagas. habeennimadii ayay weli socodkoodii ku sii jireen, iyaga oo ay baahi badani ay hayso. waxay noqdeen kuwo u qoritamaa kolba kii la dili lahaa ee la cuni lahaa meydkiisa. waxay ku hagaagaysaa kabtanka, balse kabtankiina adeerkii ayaan siin doonin booskaaladda oo isku dhufan doona, maadaama ay ceeb ku tahay in kabtankii la dilay. sidaa ayaynu ku cuni doonaan meydkii. yaa soo noqday, balse dagaal aan diyaar u ahayn. waa nibirigii oo istusayey inay nabar hore u geysteen, balse aan iminka wax dhibaato u socon. owen isna waranka kuma gamin. waxaa meel fog ka soo arkay markab kale oo laga leeyahay Maraykanka, kaasoo caawimaad ugu soo gurmuday. wuu la yaabay kabtankani sida ay dadkan u ekaadeen ee uu arkay. 9 maalmood ka bacdi degistii doontii Asagas waxa ay dib ugu soo noqdeen magaaladii ay ka soo baxeen ee Nantucket, iyagoo dadka badankoodu ay la yaabeen dadka sidan ku badbaaday, waayo ku dhowaad 3 sanno ayay ka soo maqnaayeen. wuxuuna mid kastaaba ahaa mid laabta geliya dadkii uu jeclaa, waayo wuxuu ahaa mid laga quustay noloshiisa. odayga oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, waxaan ugu mahadnaqay badbaadintii u badbaadiyey naftayda, isaguna wuu igu mahad celiyey. wuxuuna i siiyey bilad geesi isagoo hore u lahaa. maalintaas ayaana araggiisa igu dambaysay. dhanka kale kabtan george bullard wuxuu been uga sheegay mulkiilayaashii iyo maalgeliyaashii doonta, isagoo shilka si kale ugu sheegay. laakiin owen chase ayaa runta u sheegay, una sheegay inay ka dambaysay dhacdada
kadib markuu soo weeraray nibiri. Owen sidii ballanqaadku ahaa doontii dambe ayuu kabtan ka noqday. sidoo kale George Bollardna waxa uu isna raadin jiray intuu doonyo ciidanka haystay wuxuu raadin jiray nibiri cad oo isha dusheeda nabar ku leh.